الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أنا ماريها شركة حوجة كورنتادا نبكو برسالح waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga dhismaha wadada isku xirta Bursalax iyo Kalkacyo mahadcelinka kadib maanta oo taariikhdu tahay 15 bishii saddexaad 2023 waxaan guddiga dhismaha wadada isku xirta Bursalax iyo Kalkacyo shirkadda xooga korontada aniga wakiilka ah ku wareejinayaa 20 fuusto oo shidaal ah 20 fuusto oo shidaal oo ay shirkaddu ugu talagashay 10 fuusto oo kamid ah waxay ugu deeqday shirkadda xooga korontada Nebco wadada Kalkacyo iyo Bursalax isku xirta waxay 10 fuusto oo kale ugu deeqday wadada Jiira Goldugub oo iyadana dhismaheedu mar dhow bilaabmay sida guddigu noo sheegeen insha Allah shirkadda xooga korontada Nebco waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato horumarka degmada ka socda insha Allah intii ay ka gaarto وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan joognaa maantay xarunta xooga korontada Bursalax shirkadda Nebco waxaanu kala wareegnay ay nagu wareejisay annagoo ah guddigii dhisayay wadada isku xirta Bursalax iyo Kalkacyo amaba guddiga dhismaha wadooyinka Bursalax annagoo ah oo wadooyin badan awal soo dhisnay haddana kuwa badan ku hawlan inaanu dhisno waxaan kala wareegnay 20 fuusto oo naafta ah 10 aanu ku talagalnay oo shirkaddu ay noo siisay inaanu ku dhisno wadadii hadda Bayre maraysa oo ah wadada Bursalax iyo Kalkacyo 10 kale tana 1 kiiloomitir oo ka soo bilowda magaalada wadada Galdoog soo jiiraysa oo ku timaada hadii aan la idmo shirkadda Nebco xarunteeda Bursalax intaas ayaanu rabnaa insha Allah taala inaanu idin sheegno inaanu kala wareegnay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazakumullahu khayran baan idin leenahay maalkiina iyo xoogiina Allah idin barakeeyo meesha ka soo saarteena wax ka khayr badan Allah idinku bedelo waxaanu ka codsanaynaa shirkadka kale inay ku daydaan oo horumarka deegaanka ay wax ku bixiyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa mashruuca horumarinta wadooyinka Bursalax oo ay shirkadda nagala qayb qaadatay Nebco oo ugu deeqday feeskii hore oo wadada Bursalax Bayre oo 10 fuusto ugu deeqday iyo 10 fuusto ugu deeqday 1 kiiloomitir oo laamiga ka soo bayraysa ilaa Nabta oo dhismaheedii wali yahay haddana loo aruurinayo dhaqaalihii aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Nebco ka qaybgalka mashruucda waaweyn oo ay nagala qayb gashay waxaan rajaynaynaa markii koobaad inaysan noqon mar kasta ay u taagan tahay oo nagala qayb gali doonto dhismaha horumarinta Bursalax waxaan kaloo codsanaynaa shirkadaha kale iyo dadka kale muslimiinta inaysan Nebco kale nagala qayb qaataan howlaha wadno horumarinta wadooyinka Bursalax gudaheeda iyo dibaddeeda hadda aad iyo aad baa waxaan ugu soo noqonay inaan dhowr meelood oo aan dhisno magaalada gudaheeda dhowr kiiloomitir meel walba 1 kiiloomitir inaan kala qayb galo sanadka cusub oo 2023 ilaa 2025 waxaan rabnaa dhowr mashruuc oo magaalada dhexdeeda wadooyin inaan ka qabanno waxaan codsanaynaa wadooyinka nagala soo qayb galo waa mahadsantihiin.